maxaad ka codsanay bulshada Soomaaliyeed oo ku daawanaysa maxaa codsi oo dhiibanay codsi waxaan ka dhiibanayaa bulshada Soomaaliyeed in ay hawshan aan ku wada jirno aynakana ku jirtiin ay nagu taageeraan oo maasantahay soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا تي في غروبية مانت waxaan ku sugnaa ceelgaabta waxaan wareysilayaan la dooran dhalinyarada Soomaaliyeed oo dirbi jiifta ama homeless ka soo taqaanaan soo dhawaada TV-ga maxaa caqabado kala kulantay meeshan dirbigan aad joogtaan wallahi dhaxan baahi wax la'aan aan kala kulmay maxaa bulshada Soomaaliyeed ka codsanay codsigaaga maxaa lagu qabanaa waxa li qabtaa u baahanahay micnaha daryeel oo micnaha ilaahay xaqiisa ka saayno magacaaga aniga waxa la yiraahdaa Farxaan Axmed Mukhtaar Farxaan maxaa caqabado kala kulantay meeshan aad joogtaan aniga horta waxyaabo badan aan kala kulmay lugteedii ku jirtay oo naafa ku noqday marka daryeel la'aan dawladana wax ma ka aragno 24 saacna saana oo rafaadsanaa derbiga saana dhaxana nagu dhacdo go'ma haysano busto ma haysano oo isku gubino waana qabanayaan hadii waa xabsi leena keenaya inay xabsi nigiyaan waxa ka fiican inay wax noo qabtaan oo waxna baraan hooyaabo xamar jibi joogan hooyaday kasto madaxa looga jiraa aabbo waa joogaa ma ku soo xiriiri aabaad aabe waa isu xiriiraa maasha Allah muxuu meeshan kaaga kaxay waay aabe meeshan oo iga kaxilaya guriga la isku badan yahay guriga familkiga isku badan guriga cariiriya yani soo wiilo dhalamtid sax meela jiifta ma ku weenay ma meela jiifta mi ii weenay laakiin isma jeeda أنا بدبسدي وكسوتاجي حرية شعبك ديمقراطية جولس أدونك هرمرك أنت هذا بدن موسيقى وين من لوجوس جستا كل دولة وحنا ورجلنا يا دت كانوا ودت إلهي قلنك كقاضي وورد وول إني ساعدان أي عابيان ودت مساكين إن عاقل وحنا مس منكرو إنه حبك سوقته وضد الحديد إنه يستاجو وكتشيدو تاسنا نن دمير له عقل علمي إلهي سي وحاسنه مس منكرو مركا كل دولة وحنا ورجلنا يا inay soo caabiyaan ama ay soo taakulayaan hadduu alid insha Allah ta'ala binillahi al-karim Xasan Ibrahim maxaa ku gulay yaabka badnaa inta ku sugnayd derbigan ay dhibaatada wadankayga hoog lagu haysta waxaan koosayaa ina wax laga qabtaa kursi wadankay laga sii bay bakola ka tirsanahay ku dhashtay ina kursi laga sii oo laga horeeya rabaa shuftada iyo burcad hooyaabo waa dhintay hooyaday tabeelaha ku dhintay aabahay baayo ku dhintay Allah raxma magacaaga Abdiraxmaan Maxamed Xasan Abdiraxmaan maxaa ku gulay yaabka badnaa inta derbigan aad jiiftay waxay gulay yaab badneed dawladda inayna wax ka qaban ciyaalka taarta taran ee shaqada aan haysan ee koolada caba sida midda hadda aad muuqato aad arkayso kale yani had maxaa hooyaabo way joogaan jinnada Allah gelsho aad iyo aad waxaan dawladda ugu baaqi lahay inay wax u qabtaan wax ku ool ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dirbiyada jiifa sida midda hadda aad arkaysin goorma kugu dambeysay familka ti family saake 2 saac ayaa ugu dambeysay familkiga aan ka soo baxo guriga ka soo kacdaa miya waxaan ka soo kacaa guriga aada familku ugu tagtaa masha Allah maxaa kugu yaab badnaa maxaad bulshada ka codsanay meesha maxaa caqabado inta kala kulantay wax hadda kooniya oo aniga aan kala kulmay ma jirto laakiin qaasatan waxaan soo jeediyaa dadka mas'uuliyiinta haya ee maanta mas'uuliyadda ay ku magacaaban tahay in ay ka qabtaan tusaalaha ay arkayaan masha Allah maxaa ka codsanay bulshada Soomaaliyeed oo ku daawanaysa maxaa codsi oo dhiibanay codsi waxaan ka dhiibanayaa bulshada Soomaaliyeed in ay hawshan aan ku wada jirno aynakana ku jirtiin ay nagu taageeraan waxaan dhiibi lahaa bulshooyinaha Soomaaliyeed
horta far kaligeed fool ma dhaqdo in horta lisweeshadan mujeeda wax ka wanaagsan ma jiro Soomaali haddii liyahay magaca Soomaali liska wato ma fiicno in wax laisku qabto waay kan daryeel la'aanta inay daryeel loo raadiyo oo loo danqado haddii aan loo danqanin oo koolisti waaye darbijiif waaye koolist kii alqaacibaayo waaye wax ma tarayso marka Soomaalidu waxaan leenahay in dadka caawiyaan bulshadana ku soo biiraan walaalahooda inay garab siiyaan waa aragtaan dhalinyarada Soomaaliyeed meeshaan caqabada ku haysato waxayna dhiibanayaan maxallaha fariin wacyigelina waxaan rajaynayaa in wax loo qabto insha Allah waana maasintiin intaan ku agtaa barnaamijkeena wabillahi tawfiiq insha Allah intaan ku kulmayno barnaamijkaani barnaamij kale to khayr idin dhaaf